وبركاته. أنا مقعد عبد الرزاق ورسمان أحمد علي كل شيء عاصمة مارتي شيء عاصمة قلمدو قارهان دوسمراب markaan dhashana waa 1996 waxaan noqonaysaa kadib aabba maartay sheegay aabba iyo hooyo way isqabeen way kala tageen ka bacdina marka la tageen eeda la igeeyay eeda aabba la igeeyay eeda aabba la igeeyna maalmaha kamid ah maartay ari la raaciyay ariga markii la raaciyay macnaha maartay arigiina waa raacay ariga marka raacana maartay sheegay ariga wuu lumay ariga soo kulamana waxa waaye anoo markaas maartay sheeg hurda qabatay asaas aligooda ariga kulumay anagana marka waa yaray in 7 sano jiray ma sidii hadis deesna xasaas aan jiray marka alxamdulillah aday markii dambe argay walumay habeenka xaafada imaaday waa la canaantay ka bacdi subaxii la gaaray subaxina waxa la igu xiray xarig waayo eedo waxay tiri hal ii xiro waxa ari aan lumay awgiisa la ii xiray waa xarig oo ugu daahay lama ogeen wiilkii kalena waa laga furay eeda ka furtay anigana ima aysan ogeen way iska keenawdo gadaal la xiray xarig gadaal la xiray marka ila amarkiisa alxamdulillah xargis waa laga furay gacmihi waxa la arkay maartay barrayo fashiyo maartay sheeg aniga gacmihigana ma go'ay lahana waayo waxa la mariyay qaba aan lagu tiragelin la mariyay aba maartay ceelal meel dhahayo gobol oo deganaya la leesay maray oo ka bacdina waa la geed wasra laga soo jaray والله waxaan dareemayay ina maartay sheeg ya dharku waxa baan dareemayay ya dharku xiri doono ya ku qaban doono ya masquul maartay sheeg ya ku gelinayo waxa baan dareemayay markii dambe ilaa amarkiisa inuu aabba garab isiyay arkay oo aabba ila joogo markaas aabba isku sheeginayo waxaan aabba markaas saan maadima masquul ii geen doono mise aan la qabsan doono alxamdulillah waa wax marka qorayo kale caada qaranka caada uu qora labada gacan ku qortaa buuga kale labada gacan ku qortaa waxbarashadii imtixaanka markaan galaayo ka labada gacan qalin ku qabtaa oo ku qortaa marka cuntada cunaayo baasta ay tahay dheer oo kale labada gacanood ku cunaa maartay markay bariis tahana qaadan ku cunaa oo maartay caadi qaadan ku cunaa alxamdulillah qubayskana sidoo kale caadi u qubaysta maartay dharkan caadi u gashta alxamdulillah bariiska shaatiyaashana waxa igu daran maartay markii la xiraayo bis igu daran maahane laba xabaan furaa caadi u gashana ka bacna waa la xiraa wallahi waa fikra taasan beenayna waa qofku doofta fikrin waa dhibaato laakiin waa fikra marka qaarna waxaan ku fikiraa maartay hadii maartay isha gacmo alaaleed wad xoogsadeed oo maartay ama darawal iska noqon lahayd ama maartay isha ragga dhalinyartan shaqeysto mooto bajaaj ku shaqeysta maartay ku shaqeysan lahayd hadaa lixda la xad qabileed macna dadka ta kamid ah maartay xoogsta kamid ah leeyahay maartay taas maartay isha marka qaar aan niyad iska dhaha alxamdulillah maartay maantana alxamdulillah aqoon aan leeyahay mideeda kale waxaan dhahay aqoon hadaa leedahay wax ka baas malaha qalinka ay ku qaraamanaysaa waayo waxa la qoraga dhig qalinka qaado tawra loo taataad lagu maamulana Soomaalidaas ku maamulado waxay ugu dhalatay inaan cafiyo waxay ugu dhalatay markaan waxbarashadooda aan soo higsaday soo bilaabay iskuul aan dhameeyay aan arkay inaan wax qabsan karo maaragtay iskuul aan soo dhameeyay heerka jaamacadda maanta aan wado waxa uu dhigay inaan cafiyo maaragtay aniga niyadeyda iyo qalbigayga ka tastay habeenada kamid ah maaragtay aan waxaan inaha ku riyooda aan cafiyo anigana waxaan cafinayaa dhibaatada igu dhacday oo haddana aan ka sheekeeyay in badan dhibaatadana waxay iga soo martay eedaday aabahay la dhalatay marka wallahi waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan ee sacafiyaan afis wax ka wanaagsan malahan quraan kariimkaan lagu sheegay waayo waxyaabo badan ay soo qabatay waa soo koriday waxaan arrinkana waa iska dhacay xaq dara maartay xaq waxaan waa iska qoraayo ilaa iska qoray marka waxaan eedo cafi misaabaca ta saacadan laga bilaabo eedo qaar ilaa ku sii dhahday ina wax ii qabto ina wax maartay ii qabto ma u haysanay dhahday ina cafisana waa kaaga mahadcelinaya ana waxaan eedo maanta waxba kuma qabo eedada taay aabeel dhalatay qof wala maartay maanta ilamada eedo aabal dhalatay ilamidana ma jirto oo adi aan ahayn inaan ku wanaajiyo maartay sheega ay fiican ina saka cafiya ay fiican aqri adduun kala badan cafi misaaga taanda oo ma sha Allah wax barnaayo hami jecel ina maartay eedo wax qabsan karo ina dhahay maartay wax ma qabsan kari waa qalad waayo adina maartay waxay ku noqonaysaa maartay dhirigelin maartay ummadda kalena waxa dhalinyarta kalena waxa laga yaabaa inay kugu daysadaan oo ay maartay dadka wax
qofka wax ku sameeyo inuu cafiyo oo maartay oo cafiska oo maartay fidiyo marka wallahi aad baan ugu faraxsanahay sida wanaagsan oo wax u soo bartay iyo sida aan iskugu taqalusiyay inaan niyadeyda maartay aan ka dhiirigeliyo dhalinyaradeedana maartay igu maartay ay sameeyaan ana igu dhiiri qaataan xuquuqna hala joojiyaan dhihi lahaa aasagana sidoo kale maartay hebela qof iga dilay ama hebela maartay sheeg wax iga sameeyay oo aan u qabaa waan maartay sheeg waan ka aasanaya taasna ma wanaagsana maartay si ahaan hadii loo fiirsho diini ahaanna maartay inaysan wanaagsanna u malaynayaa oo maartay horta aliyadu biliyad way tahay laakiinse ma fiicna haddii sharci diiniyad maartay loo helo waa loo qaateen laakiinse waxaan dhihi lahay ha laga weynaadaan dhihi lahaa aniga taas insha allah abdullahi yaraad oo ha laga tusaale qaato sida aniga aan wax u cafiyo kale ha loo cafiyo aniga waxaan dhihi lahay arrimahan maartay qabyaalada la isku dagaalamaya ama qabyaalada looga hadlayo in la iska daayo lagu bedelo maartay niyadsame iyo maartay calulfiyoobay oo la isna cafiyo maartay la wada sheekaysto dhalinyaro ahaan lees wato la wada sheekaysto la wada kulmo afiican marka alxamdulillah anigana maartay isha waxaan jecelahay inta maartay barnaamijkan cafiska aan wadi doono ilaa maartay nolosheeda iyo inta maartay inta ka dhimada nafteeda ka dhimaba maartay inaan wadi doono isku dayaya insha Allah abdullahi yiraahdo waana horumar maartay isha ana ii wanaagsan ummadda Soomaaliyeed oo wanaagsan لأن Soomaaliyeedna waxaan dhihi lahay qofka bini'aadanka maartay xurguf oo iska mari kartaan waa la iska qabsan karaa uqdada waa la isku hayi karaa laakiinse uqdada waxaa ka wanaagsan in maartay niyadda saafi laga dhigo abdullahi yiraahdo waxay tahay in dhalinyarta Soomaaliyeed uga tusaale qaadato sida aniga aan ahay maanta aan ahay iyo horumarka maanta aniga aan gaaray iyo sida eedaday aabeen dhalata aan u cafiyay